suurtagal ma tahay inaad dhacdo daawada lacag gaaraysa $250 milyan oo canshuura adigoo aaminsan inaan lagaaga daba imaanin lacagtaasna loogu talagalay loo qoondeeyey in lagu samata bixiyo carruurta yaryar xilligii COVID-19 kuwaas oo waalidiintooda aan haysan qaalo ku filan. sheekada bilowgeeda halkan ayay ka dhacday waa dalka Mareykanka qaasatan Minnesota Minneapolis. daawada lacagtan ayaa loo qoondeeyey carruur iskuulada dhigdhigato iyo kuwa ka yarba in lagu samata bixiyo. lacagtan $250 milyan waxay gacantooda gashay shakhsiyaad qaasa. isla maxkamadda ayaa looga yeedhay 48 qof 47 kamida sida la sheegay waa Soomaali. sida warbixinta lagu sheegay lacagta xoogeeda ayaa lagu maalgashtay dalka Mareykanka meel ka baxsan sida Kenya, Turkiga iyo Dubai. dhowrka wadanna waxaa looga gatay ayay sheegeen guryo qaaliya iyo dahab aad u tiro badan. gudaha Mareykankana waxaa looga gatay ayay sheegeen guryo qaaliya iyo baawur qaaliya. taa oo la yaab la noqotay lacagtii dadkii dhacay inay waxa noocaas oo kala sameeyaan. hase ahaatee waxaa kaloo warbixinta ka xusan dadkii maxkamadda looga yeedhay qaybo kamida ayaa waxay sheegeen in ay quudin jireen 5,000 oo qofood oo ku noolada hal dabaq, iyaga oo la yimid rasiidyo been abuura sheegeen inay quudin jireen 5,000 oo carruur oo ku wada noolaayeen hal dabaq. waana warbixinta la yaab kale qabsatay social media su'aalo badan dhalisay. dhanka kale dadkii la soo dacweeyey ayaa iyaguna waxay sheegeen lacagtan qayb ka mid inay laaluush ahaanba u bixi jireen lacag gaarayso $300,000 ilaa $1 milyan inta u dhaxayso. waana warbixin kale oo iyadana qabsatay social media daawade. ugu dambeyn dhammaantood waxay la wada yimaadeen rasiidyo been abuura. hase ahaatee waxaa la xaqiijiyey in lacagtan iyagu ay dhaceen. lacagtan gaaraysa $250 milyan oo dollar. waxaa kaloo ka siyaada ah in ay u furteenba websiteyo u gooniya kuwaas ciwaan uga dhigeen caawi dadka dhibaataysan ama carruurta dhibaataysan. lacagta ka soo xarootay ayaa la sheegay inay ka badan tahay $250 milyan. hase ahaatee ugu dambeyn dhammaantood waxaa looga yeedhay shalay oo talaada maxkamadda. waxay kaloo maxkamadda sheegtay in kiiska in muddaa lagu daba jiray la joogana xilligii lasoo gabagabeyn lahaa. waana waxyaalay ugu yaabka badnaa oo magac dowladeed lagu dhaco ama bulsho canshuur bixiyaala xoolahooda lagu dhaco sida ay warbixinta ku xuseen. waana sida ay sheegeen arrintan waxa aan loo dulqaadan doonin. hadda kadibna baaritaan dheer ay ku samayn doonaan qofkii doonaya inuu lacag dowladeed wax ku caawiyo ama rabo barnaamijka caawinaada dowladda xaggeeda u soo marayo. baaritaanka ayaa si aad loo adkeyn doonaa sida ay sheegeen. hase ahaatee ugu dambeyn daawada waxaanu soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena adigoo doonaya inaad noqoto maalin taajir. daawada ficilka noocaana ma ku dhaqaaqleed kadibna adigoo niyadaada ku taagantahay inaan lagaa daba imaan doonin. bulshada Soomaaliyeed suurtagal ma tahay inay waxan sameeyaan? hadday sameeyeense ee arrintaas social media qabsatay suurtagal ma tahay inay mar labaad bulsho Soomaaliyeed oo kale ficilka noocaana sameeyaan? fikirkaaga iyo sida adiga kula tahay hoos inoogu soo qor, waa inoo muhiim. waxba ha noo taabanina adresna ha noo taabanina. annaga wadi ka codsanay waxa nibaalka waan kaga dhigay adreska noo taabto. waxa moodaa inaa maartay waxa weeyaan carruur idin kaga dhimanaya haddaan noo taabataan. ciyaal baa idin kaga dhimanaya malaha haddaad i taabataan waxba ha taabanin iska daayay. barnaamij midkan lamid intaanu kulmi doono daawade sidaa iyo nabadgelyo. waxba ha noo taabanina adresna ha noo taabanina. annaga wadi ka codsanay waxa nibaalka waan kaga dhigay adreska noo taabto. waxa moodaa inaa maartay waxa weeyaan carruur idin kaga dhimanaya haddaan noo taabataan. ciyaal baa idin kaga dhimanaya malaha haddaad i taabataan waxba ha taabanin iska daayay.